iskasii wadayna waa galabnimo oo arbaca ah taariikhdu waa 8 waa bishii Janaayo ama January sanada 2020 waxaan noo sii socday casharkeennii waxaan soo dhameysanay simple present continuous tense maanta waxaan bilaawnaa tenniska labaad oo ah the simple present tense. The simple present is used for a habitual action. The simple present is used for a habitual action. Even you can say it is used for an action which happens daily. The helping verb is do and does. Haye waa tii labaad waxaa la yiraahdaa the simple fudud present joogtada ah tennis goorta joogtada ee fudud haddii macna Af-Soomali saasaleeda goorta joogtada ee fudud waa waxa dhaca ama shaqooyinka dhaca maalin walba ama daily. The simple present is used for waxa loo isticmaalaa a habitual action shaqo soo noqnoqota. Habitual means waxa la English ahaan doing constantly waa wax loo sameeyo si joogto ah ama wax soo noqnoqda. Even hata you can say waxaan dhihi karnaa simple present it is used for waxa loo adeegsadaa an action fal which happens ka soo dhaco daily maalin walba. The helping verb ficil caawiya is waa do and does. Do haqata I, you, we and they. I was first person of singular, you was second person, both singular and plural. You sababta you mar waa singular marna waa plural. Das waxa isticmaalo third person of singular. Waxa leedahay third person of singular he, she and it. It waa nal fitigis waa waxa nooleen iyo sheesha loo isticmaala. Haye formulaheeda qaacidada waa subject sameeye plus oo lagu daray main verb falka muhiimka ah plus oo lagu sii daray ama loo geeyay object dhibanaha. E.g. example gratiya tusaale affirmative form asoo ah qaabka ogolaanshaha. I learn English waxaan bartaa aniga English. I aniga learn waxaan bartaa Englishka. I waa subject mar waxa la personal pronouns mar waa subject mar waxa la first person of singular. I learn English ana waxaan bartaa Englishka. I waa subject learn waa verb ama waa main verb English waa object ama waa dhibane. He writes wuxuu qoraa isaga a letter warqad. He waa third person of singular. Writes essay qaadata markaan ardayda waxay isku qaldaan markii la adeegsanayo simple present tense sababtoo ah he writes kaas xumuudeen waana verb inuu yahay name s waxa qaato waa name ee leeyahay may laakiin markay san verb ka soo qaato waxa leedahay marka laga hadlayo simple present tense kooda ayaa wuxuu qaataa he iyo she waxay qaataa idka he iyo she badana aad loo isticmaala. He writes, he gives, he brings, he tells, he sends, he comes, he shows waxyaalo sadan waa loo isticmaala. He learns, he writes, he helps, she cooks. He writes wuxuu qoraa isaga ee letter warqad asaga wuxuu qoraa warqad. Question form qaabka su'aasha waxay ahayd I learn English change into question form u bedel su'aal ama su'aal ka dhigbo. Do qaado do I learn English على مسألة ودمبس أم question mark أنا ما برتا إنجليش هاي داسي رايت أسرع مقرأ إلا تورقة question mark أو دمبس على سؤال أسرع ورقة مقرأ عشر كل ونسي صعدونا وحنور بيرنا وحيد دونا أسرع نيجاتيف إيو question نيجاتيف إن شاء الله ما شاء الله سي صعدوا إن أرضهم كأصلا يا إن أد وجود اللغة إنجليش كا برشة إنجليش كا أد لو فيريا وا مركز هاي ستو grammar constantly grammar markaa hesho qaabka loo isticmaalo markaa hesho markaas waa Ingiriiska waa ka dhisantaa laakiin has ku dhaxyaacin raac misled dad ahayd hadda waxa haysataa new way of teaching the correct way of teaching haysta a right way of teaching a right teacher waxa dhan waa helaysaa waxa ka helaysaa Kanaalkan la soco maalin walba marka laga reebo khamiis iyo jimco insha Allah ta'ala dadaala hala dadaalo luqada Ingiriiska waa luqad aad muhiim ah waxa laga yaabaa in aad wadamada Yurub waxa laga luqadan waxbarashadiisa waxa loo bartaa wax kale maaha waxa la rabaa we are Muslim people 100% anigu waxaan boqolkiiba dad muslimiin ah gaalada ama kristaanka waxa la inaad ugu macnayso luqada aad u macnayso war quraanka waa haysanaa this is holy Quran it is a big holy Quran we must believe Allah and his prophet Muhammad peace and mercy of Allah be upon him. Gaalka markaas waxa laga yaabaa kristaanka dadkii gaalada ah
oo diinta qaab daro u fahansan inay kaa fahmaan ay kaa dhaadhiciyaan. Kenya marka la fiiriyo waddanka Kenya waa xuduud aan leenahay. Kenya khudbadaha waxaa lagu akhriyaa English, waxaa lagu akhriyaa mar waxaa lagu akhriyaa English, mar waxaa lagu akhriyaa luqadda Kenyatta ama Swahiliga, mar waxaa lagu akhriyaa luqadda Carabiga. intaas waxaa lagu talagalay Englishka waa inay fahmaan dad kale oo muslimiinta ah. marka waxaa loo baahan luqadda English waa luqad aad u weyn, ku dadaal, laakiin waxaa xoogga saartaa grammarada, how to use grammar, how to connect the grammar. haddaa hesho hay kala saan qorin waa dhismaysaa. meesha ugu baxaya channelka la soo xiriiro waxaa saarataa mar walba channelka share ama like ama subscribe-ka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sida